22 January sanadkan waxaa ku baxay gacanta booliiska Allaha u naxariistay Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun gudoomiyihii degmada Hodan gaashaanle Shucayb Cabdi Maxamed taliyihii degmada Howlwadaag habeenkaasi waxa uu qorsheystay qorshe howleedkiisii caadiga ahaa waxa uu kaalmo iyo ogaal howleedkaasi la wadaagay taliyihii qaybta uu ka tirsanaa haddana taliyaha degmada Hodan Bashiir iyo taliyihii Waabari Mooshin booliiska Soomaaliya waxa uu dagaal kula jiray maleeshiyaad dirqi iyo farsamo ku soo galiyay magaalada Jaadka Kiya ka yimaado laakiin dawladda ay kaga maarantay kan Itoobiya taliyayaashii howlgalka kula jiray waxay ka hor sheegeen maxkamadda inaysan ogeyn howlgal u gaar ah Shucayb iyo cadaawad ka dhaxaysay isaga iyo gudoomiyihii degmada Hodan mid ka mid ah ilaaladii marxuum Dhagajuun waxa uu ka hor sheegay maxkamadda in xabadihii dhacay uu qayb ka ahaa sidaasna uu isaga xitaa ku dhaawacmay guddi dawladda Soomaaliya u xil saartay kiiskan ayaa iyagana bilowgii soo saaray natiijo u dhiganta shil 445 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed laakiin xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in cabasho ka timid dhibanayaasha loo kordhiyay guddiga baarista taasi oo mar kale keentay inay soo saaraan warbixin u dhiganta ku talagal dambi oo ah 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed General Axmed Cali Bakar oo kamid ahaa guddigii baaray kiiska dilka marxuum Dhagajuun ma sheegin ku talagal dambi dil ah laakiin waxa uu khibradiisa tilmaamay in maamul xumo howlgalay jirtay ayna tahay mas'uuliyadaasi dusha loo saaro sargaalka horboodaya howlgalka Cornel Cabdiraxmaan Axmed Caraale waxa uu u sheegay garsoorka in khibradiisa uu ku falanqeeyay isla natiijadii guddigii hore ay kaga dhigeen shil laakiin taxliiliskiisa dambe ay la noqotay ku talagal dambi Sheekh Xasan oo bilow ilaa dhamaad kamid ahaa guddiga waxa ay la tahay inaysan u muuqan wax ku talagal ah balse uu u arka baaristiisa in ay wax walba ku dhaceen kama qaranada u doodeeyay sanayaasha ayaan marnada firin dhiiga marxuumka oo ku baxay gacanteeda sanayaasha waxa ay sadureen dooda xeer ilaalinta iyo guddigii baaray kiiska oo ay cadaadis gaar ah ku hayeen hay'ado kale oo aan marna kaalin ku lahayn dalada garsoorka sida ay bilow ilaa dhamaad ka sheegeen fadhiyadii dhacay 8 May iyo 24 Abriil sanadkan maxkamaddu oo waqti badan qaadatay si la mid ah dadweynahana ay toos uga daawanayeen shaashadaha gaarka loo leeyahay tan dawladda ayaa ugu dambeyn maanta go'aan soo saartay waxa ayna go'aamisay in kiiskan uusan ahayn ku talagal balse uu ahaa shil dhacay sidaasina ay ku baabi'isay qodobkii dambe ee ahaa ku talagalka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed gaashaanle booliis Shucayb Cabdi Maxamed ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ciidan ah sababtoo ah inuu ka gaabiyo hogaaminta howlihiisa ee inuu sahlay baxsadka mid ka mid ah ilaaladiisa 2 dabla booliis Bishaar Axmed Cabdi ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ciidan ah waxaana sabab looga dhigay taxadar la'aan iyo baxsashadiisa halka mid 2 sano oo xabsi ciidan ah lagu xukumay Jamaal Isxaaq Cali Diblaawi Ibrahim Yusuf Faarax Sibriya Afrax Kulmiye Kaariya Cali sida aan ka helnay nuqul ee maxkamadda ciidamada la wadaagtay warbaahinta dhammaan sanayaasha ay maxkamaddu saartay bixinta magta marxuumka diya muuqaalada diyaarad iyo magdowsiinta Ibraahim Abukar Cusmaan iyo Liibaan Xasan Liibaan oo shilkaasi dhaawac ka soo gaaray Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho